ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa fashiliyay qarax al-shabaab ay ku xidheen gaariga wasiirka arrimaha bulshada ee Jubbaland Maxamed Ibrahim Maxamuud. ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland ayaa sheegay in ay ka war heleen akhbaar ah in wasiirka gaarigiisa loogu xiray qarax isla markaana bilaabay howlgallo ka dhana ururka al-shabaab kuwaas oo lagu soo qabtay dhagarqabihii gaariga oo ku xidhay wasiirka qaraxa. waxaana sidoo kale uu sheegay in ay jiraan dad badan oo al-shabaab oo ku jira magaalada Kismaayo kuwaas oo si gaar ah oo la shaqeynayay. ninkan aad aragtaan wuxuu in muddo ah ka mid ahaa ciidamada Jubbaland lamana ogeyn in al-shabaab uu la shaqeeyo waxaana dhacday ninkani in magaalada Kismaayo uu ka fuliyo faral argagax leh oo dad badan ay ku dhamaadeen. wuxuu dhahay miina meel ku dhigayaa qaad waxaad geysaa gaariga wasiirka ku dhiji wixii kama laba qalbiyeenin waan ka aqbalay inaan miina u qaado aan ku dhiji gaariga waan ka aqbalay. maxaad ku heshiisay wuxuu dhahay marka miina okay ee noqoto lacag waxa xad doonta ku siinayaa $15,000 oo ku siinayaa ay waayahan dhahay man laba qalbiyeen miinadii waan soo qaaday gaarigii aan ku dhijiyay. goorma miinada soo qaaday? miinada waxaan soo qaaday 4 saac oo subaxnimo waxaan ku dhijiyay 8 saac maalinimo ah. markaan gaariga ku dhijiyay kadib nin subxaana ay dhaan baa ii imaaday $100 buu ii tuuray magaalada jooga booliska waaye horta meesha fadhiisteen salli baa dhigteen aroos suufiidi weeji galay okay waayo dhaay $100 buu ii soo tuuray markuu lacagta ii soo tuuray kadib aan waa iska tagay markaa iska tagay cabaar aan fadhiyay ciidanka nabad sugidda ay imaadeen waa la qabtay inuu asaga soo meeshay in al-shabaab soo meeshay burkamaani. ciidamada nabad sugidda ee Jubbaland ayaa shacabka uga mahadceliyay kaalinta weyn ay ka qaateen fashilinta qaraxii al-shabaab ay doonayeen in ay ku dilaan wasiirka arrimaha bulshada ee Jubbaland Macalin Maxamed Ibrahim. bismillaahir rahmaanir rahiim sidaad la socoto waxaa lala damacsanaa wasiirka arrimaha bulshada qaraxii 11 shalay galabnimo la soo qabtay oo lagu soo qabtay ninka yar oo dhalinyarada ah oo Cabdiqadar la dhaho qaraxa isaga ah oo muddo aan daba joognay ciidanka nabad sugidda ay daba joogeen ilaahayna uu ku guuleeyay in ay gacanta ku soo dhigaan. waxaa lagu guuleystay 11 galabnimo wasiirka arrimaha bulshada iyo isaga oo gaadhigiisa lagu dhajiyay waxaana la daba socday qorshaha isaga ah muddo ilaa dhowr isbuuca. ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay 11 shalay maqribnimo waxaana lagu soo qabtay wiilka yar oo isaga ah oo aan ka fogeyn oo adeerka uu yahay marka taa iyada saasan ugu guuleysan. waxaa jirtay iyadana xalay 6 saac iyo badhkii habeenimo markay saacadu ahayd ka hor xog aan helay oo ku saabsan kooxda al-shabaab xogtaasoo ku saabsanayd in ay fal ka fulin doonaan magaalada Oomiini iyo wax lamid ah ay ku aasi rabaan. kadib markaan xogta iyada aan raacnay waxaan ku guuleysanay in aan gacanta ku dhigno miinadii iyada ahayd oo ay aasi rabeen. sida aan la socoto qorshahanaga iyo baleenkanagu ma ahayn iyada iyo miinadaas iyo wixii dhigaya inay badbaadaan. nasiib wanaag dee malagoodu ma galin waxayna ahayn niman cadow ah oo hubaysan oo ciidan ah. markii ay ogaadeen meel walba inaan kaga soo baxno dhinac walba aan ka jiro qatarna ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugiduna si gacan fudud qof kastana meel uu ka baxay sida iyada ahana miinadii gacanta ugu dhigno. Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV-ga Universal.